kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada TV-ga caalamiga dalka TV anigoo Saciid Suge waxaan idin akhrin doonaa qodobada warka kooban ee TV-ga. Jubbaland maxay ka tiri khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya? madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay warbaahinta VOA ayaa ka warbixiyay mowqifka Jubbaland ee la xiriira khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka oo u muuqda shakhsi aan ogoleyn inuu eedda saaro Kenya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay cadeyso halka ay dhibtu ka jirto. maxamed sayid aadan ayaa yiri dabcan waad ogtihiin 30 sano ee ugu dambeysay annaga iyo Kenya waxa naga dhaxeeyay iskaashi amni iyo xiriir wanaagsan wixii kalifay inuu xiriirka xumaado waxaan rabnaa inay dowladda Soomaaliya cadeyso. wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Kenya ay martigelisay qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed isla markaana ay jirto xuduud dheer oo kala dhaxaysa Soomaaliya isagoo inta ku daray in Kenya tahay halkii lagu aasaasay dowladdii ugu horeysay ee ku meel gaarka ahayd oo muddo 3 sano ah loo fadhiyay waa sida uu yiri. wuxuu sheegay in Jubbaland uu xiriir gaar ah kala dhaxeeyo oo kaliya hay'adaha amniga quseeya ee Kenya oo aan siyaasadda wax shaqo ah ku lahayn. sidaa daraadeed ayuu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya looga fadhiyo in ay cadeyso halka ay wax ka qaldameen. mar wax laga weydiiyay sida ay u arkaan mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhawaan laga soo celiyay magaalada Nairobi ayuu yiri runtii waa wax laga xumaado in mas'uuliyiin hawl qaran u socday la soo celiyo laakiin waa in laftirkeeda baaritaan lagu sameeyo sababta keentay in la soo celiyo mas'uuliyiintii isagoo inta raaciyay in laga yaabo in qaladku ayaga lahaayeenba. dowladda Britain ayaa waxa ay ku baaqday in la soo magacaabo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. wakiilka joogtada ah ee dowladda UK u joogta qaramada midoobay Danjira Karen Pence ayaa dalbatay in si degdeg ah loo soo magacaabo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya xil ay ka hadlaysay kulan ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya. wakiilka joogtada ah ee dowladda UK u joogta qaramada midoobay Danjira Karen Pence ayaa dalbatay in si degdeg ah loo soo magacaabo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya xilli ay ka hadlaysay kulan ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen arrimaha dalka Soomaaliya. talaabadan ayay ku sheegtay in looga gol leeyahay in dib loo soo celiyo wada shaqayntii dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay isla markaana Soomaaliya xilligan ay ku jirto waqti adag oo u baahan in laga gudbo. danjiraha dowladda Britain u jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobay Karen Pence ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxa ugu baaqday inay xoogga saaraan dhinacyada amniga xasiloonida siyaasadeed iyo mid dhaqaale kana faa'iideystaan fursadaha jira. sanadka soo socda ayay sheegtay in Soomaaliya ay muhiimad gaar ah u leedahay isla markaana lagu kala ogaan karo in marka la gaaro sanadka 2020 iyo 2021 ay dalka ka dhici karaan doorasho qof iyo cod ah oo madaxda dowladda Soomaaliya ay ballan qaadeen. waxa ay ku amaantay madaxda dowladda Soomaaliya inay horumar ka gaareen arrimaha dhaqaalaha dib u habeynta hay'adaha amniga iyo siyaasadda walow xilligan uu dalku marayo meel xasaasi ah lagana soo gudbay xaalado siyaasadeed oo qaarkood aan wanaagsanayn. Mareykanka oo 2 toddobaad u qabtay Turkiga iyo xiisadda labada dal oo ka sii daraysa. xukuumadda Washington ayaa dowladda Turkiga siisay oo kaliya 2 toddobaad si ay heshiiska Ruushka uga laabato mid cusubna ula gasho isla Mareykanka haddii kalena ay wajihi doonto ganaax culus sida uu baahiyay telefishinka CNBC. aqalka Kremlin-ka ee looga armiyay Ruushka ayaa cambaariyay kuna sheegay wax aan la aqbali karin waqtiga la sheegay in Mareykanku u qabtay Turkiga si uu uga laabto heshiiska uu ku iibsanayo hubka difaaca gantaalada Ruushka ee S-400 taa beddelkeedana uu iibsado midka Mareykanka ee Patriot. Turkiga iyo Mareykanka ayaa muddo isku hayay arrimo dhowr ah ay ku jirto go'aanka Ankara ay ku iibsanayso hubka S-400. Washington ayaa sheegtay in haddii heshiiska Ruushka uu dhaqan galo ay waxyeeleyn doonto kaalinta Turkiga ee dhismaha diyaaradda ee F-35 oo ay sameynayso shirkadda Mareykanka ee Lockheed Martin. mar arrintan wax laga weydiiyay afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov waxa uu yiri tani waxaan u aragnaa arrin aad u xun waqtiga la qabtay waa mid aan la aqbali karin waxaana ku raacsanahay mowqifka Turkiga gaar ahaan madaxweyne Erdogan ee ah in heshiiska S-400 mar hore la soo gabagabeeyay lana fulin doono. halkaasina waxaan ku soo gabagabayn doonaa qodobada warka kooban ee TV-ga caalamiga dalka anigoo Saciid Suge waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.